maalmuhu kala bacan oo kala weyn shalay oo isniin ahayd waxaa 55 sano jirsaday oo u dabaaldegay dhalashadiisa aktarka weyn ee Shah Rukh Khan ka oo dhashay shalay oo kale 2 November 1965 idaacadaha waxay ugu yeeraan ninkan magacyo ay ku darajiyaan sida Badshah of Bollywood, King of Bollywood ama King Khan. maalinta dhalashada Shah Rukh Khan Dubai Burj Khalifa wuxuu sharfay xidig weyn wanaagsan ka oo lagu daawanayo shaashada ugu weyn uguna dheer adduunka. dhalashada Shah Rukh Khan oo maalinta Isniinta ku beegneyd munaaradda caanka ahayd ee Dubai Burj Khalifa ayaa ku sharfay xidiga filimka Bollywood iyadoo soo bandhigtay muuqaalo laga soo duubay filmadiisa kala duwan si loogu rajeeyo dhalasho wacan. jilaa Shah Rukh Khan ayaa qoyskiisa iyo asxaabtiisa kula dabaaldegay sanad guuladiisa 55aad ee dhalashadiisa. inkasta oo rabitaano wanaaga ay ka yimaadeen adduunka oo dhan, mas'uuliyiinta shirkadda caanka ah ee Dubai Burj Khalifa ayaa go'aansaday in la sharfo xidiga iyaga oo ku soo bandhigay sawirkiisa oo rajan dhalasho darbiga dibadiisa. isagoo la wadaagaya sawir uu taagan yahay taabarka gadaashii Shah Rukh Khan wuxuu qoray waa wax fiican inaan isaga arko shaashada ugu weyn uguna dheer adduunka. saaxiibka Mohammed Alabar wuxuu ila wadaagaya shaashada ugu weyn xitaa ka hor filimkayga xiga. Thanks and love you all Burj Khalifa. aniga oo marti ku ah Dubai carruurteedu aad bay ula yaabeen aniguna waan jeclahay. So thank you so much and thank you for the birthday wishes. I love you all and inshallah next year we'll all get together and have a bigger and better party like I've said already. 56 is better than 55 and we'll have lots of fun. And I miss you all. Lots of love. A big hug to everyone. Keep doing the good work. God bless you all. sawirka ayaa muujiyay soo dhawaashaha wajiga Shah Rukh Khan oo ay ku qoran tahay farinta dhalasho wanaagsan. Shah Rukh Khan waxay ahayd qayb ka mid ah fiidiyoga laga soo duubay filmadiisa kala duwan. gabadha uu dhalay Shah Rukh Khan ee lagu magacaabo Suhana ayaa iyaduna sawir la wadaagtay goob isku mid ah xafladda ay qabteen. director Karan Johar ayaa sidoo kale la wadaagay muuqaal fiidiyo oo Shah Rukh Khan muujinaya farxad isla markaana bidhaaminaya calaamada suulka isla markaana ku socda dhul balaaran kuna daawanaya munaaradda. cod oo laga yaabo inuu yahay kii Karan Johar ayaa laga maqlay isagoo leh war qof walba waa ku salaaman tahay bahay waa inaad halka u leexataa wax ka dheh jaceelka aad helayso. Shah Rukh Khan oo la maqli karna ayaa markaa la maqli karaa isagoo leh mahadsanid qof walba waad ku mahadsan tahay mahadsanid Mohammed jaceyl aad u badan dhammaantiin. maalintii hore wuxuu sii daayay fariin muuqaal dhammaan taageerayaashiisa wuxuu yiri waxaan u maleynayaa inay tani tahay shaqada ugu cajiibka badan ee aan qaban karno maxaa yeelay ma noqon kartid wiil gacaliya aniga oo kala adigoon jacayl faafin. wuxuu sidoo kale u sheegay taageerayaashiisa in marka ay kulmaan inay yeelan doonaan xaflad weyn oo wanaagsan. sidii horeba aan u yiri 56 way ka fiican tahay 55 waxaana yeelan doonaa baashaal badan ayaa uu raaciyay qoraal bartiisa Twitterka u soo dhigay xidiga u dabaaldegaya dhalashadiisa 55 sano jirka ee Shah Rukh Khan.